aniga xarigayga waxaaba iga daran yani kitaabkan lagu xukumay layma siin inaan ku hadlo sababtoo laba dhinac baan la ku yiri ayaad eedaynaysan ku soo eedeeyay qolada kalena warbaahinta la hadlaysay anoo xiran oo qaarkood ku hanjabayeen inay dilayaan ama ay yiraahdeen waa in la dilo oo waxay doonaan bay saarayeen anigana waa la soo qabtay layma ogolaan warbaahin waan xidhnaynta marka maanta السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلب نكسن داود يا الميل كستو دنيا نقل سعتان وقلب نيو خميسة بالشهر ديسمبر نوالبيا لباتان سنة لبدا كوني يلبيا لا تنكا قد بدأت برامج كنا كوما قلي دونتان وحا كاميدا عبد الملك موسى علدون oo ah wariye Soomaaliyeed oo laga yaqaan geyga Soomaalida intiisa badan ayaa maanta laga sii daayay xabsiga ku yaala magaalada Hargeysa oo muddo ku jiray balse waxa uu fariin adag u diray xukuumadda Somaliland mar kale taasi oo keeni karaysa in uu mutaysto dhibaatooyin kale iyo waliba xogihii ugu dambeeyay naga soo gaaray magaalada Hargeysa yanigi doona iyo waxa laga filan karayo Cabd Malik Muuse Caldoon shaki badan oo ka taagan ayaan soo qaadan doonaa iyo cidda sababtoo ah in kooxda TPLF ay haatan mar kale soo rogaal celiso oo la ogaaday iyo dawladda Itoobiya oo talaabo weyn qaadaysa iyo wadamada reer galbeedka oo Mareykanku ugu weyn yahay oo iyaguna dhankooda isdiyaariyay iyo wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray waqooyiga wadankaas Itoobiya caasimada deegaanka Canfarta oo laga dareemayo buuq iyo sawaxan fara badan iyo waxa sababay iyo waliba galbeedka City oo iyagana warar kala duwan ay ka imanayaan oo la sheegay in dagaal xoog badan ay halkaasi wali ka sii soconayaan kooxda jabhadda xoreynta galbeedka City iyo waliba jabhadii dhanka deegaanka Canfarta ka socotay iyo waliba kooxdii Fano ayaa halkaasi ku wada dagaalamaya dhimasho badan ayaa ka dhalatay sidii xogaha ay nagu soo gaarayaan iyo dagaalada dawladda Soomaaliya ay kula jirto kooxda argagixisada ee shabaabka oo waji cusub yeeshay Mareykanka oo war farxad leh maqashiyay dawladda Soomaaliya iyo waliba dadka Soomaaliyeed guud ahaanba qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay xukuumadda Somaliland ayaa maanta xorriyadiisii dib ugu soo celisay kadib markii uu dhameystay xukunkiisii wariye Cabd Malik Muuse Caldoon oo muddo u xidhnaa xukuumadda Somaliland iyo waliba xeeraalinta Somaliland waxaana Cabd Malik Muuse Caldoon lagu soo oogay dambiyo kala duwan balse waxa uu maanta markii ugu horeysay ka hadlay guud ahaanba dambiga lagu soo eedeeyay iyo waliba qaabka ay xukuumadda Somaliland ula dhaqantay waxa uu dhaliilo xoogan u jeediyay garsoorka iyo waliba maxkamadaha Somaliland oo ku tilmaamay inay yihiin kuwa baalmarsan shariicada islaamka iyo guud ahaanba wixii uu Ilaahay ugu talagalay in lagu dhaqo ummadiisa waa sida uu hadalka u dhigay si kastoo yaataba Cabd Malik Muuse Caldoon ayaa luqad adag waxa uu kula hadlay xukuumadda Somaliland waxaana uu sheegay inaan marnaba la aqbali karin qaabka ay haatan u shaqeeyaan maxkamadaha Somaliland arrintaasi oo muran iyo sawaxan fara badan dhalisay dad badan ayaa ka falceliyay guud ahaanba hadalka Cabd Malik Muuse Caldoon ee markii uu ka soo baxay xabsiga kadib uu durbaba ku dhaliilay maxkamadaha iyo garsoorka Somaliland waxa dhinaca kale uu ka hadlay dugsiga abaarso iyo waliba xukunkii lagu riday oo ku tilmaamay inuu ahaa mid baalmarsan guud ahaanba diinta islaamka iyo dhaqanka suuban waxa uu sheegay in marnaba aanu aqbalin isla markaana uu ka codsaday xaakimkii xukumayay dambigiisa in uu ku xukumo diinta islaamka ama kitaabka quraanka balse uu ka diiday oo uu sharcigaasi uu isagu wato uu guud ahaanba ku xukumay waa sidoo hadalka u dhigay Cabd Malik Muuse Caldoon waxa uu Caldoon sheegay in uu ku farxay markii uu maqlay warka sheegaya inuu islaamay ninkii iska lahaa ama asaasihii dugsiga abaarso oo sheegay inuu diinta islaamka qaatay balse marnaba aanu aqbalin in uu wali dhaqankii uu ka hadlay ama guud ahaanba xabsiga ku galay uu wali ka jiro gudaha dugsigaasi abaarso dambiyada ugu waaweyn ee lagu soo oogay Cabd Malik Muuse Caldoon ayaa waxaa ka mid ahaa in uu propaganda iyo waliba warar aan jirin uu ka sheegay dugsiga abaarso ee ku yaala duleedka magaalada caasimadda ee Hargeysa oo uu sheegay in arrimo diinta baalmarsan halkaasi lagu hayo isla markaana dhalinyarada halkaasi dhigata lagu barayo dhaqamo kala duwan oo diinta islaamka ka hor imanaya arrintaas oo la sheegay inaanay ka jirin dugsigaasi abaarso xukuumadda Somaliland ay dambigaasi ku soo oogtay iyo waliba xeeraalinta si kastoo yaataba waxa uu Cabd Malik Muuse Caldoon soo dhameystay xukun 2 sano ah oo lagu riday waxaana uu sheegay inaanu marnaba joojin doonin dhaliisha iyo waliba inuu sheego waxyaabaha ka khaldan xukuumadda Somaliland iyo gudaha Somaliland wax walba oo dhaqanka suuban iyo diinta islaamka ka hor imanayana
aanu marnaba ka aamusi doonin, balse waxa ay dadku fikirro kala duwan ka jeedinayeen ama guud ahaanba ay ka dhiibanayeen cabdimaalik muuse coldoon iyo weliba hadallada kasoo yeedhaya haatan isagoo kasoo baxay xabsigii magaalada hargeysa ee uu xukunkiisa kusoo dhammaystay hortiisa ayuu kula hadlay warbaahinta, waxaana uu sheegay in marnaba aanu aqbalaynin in maxkamadaha somalilan ay yaalaan arrimo baalmarsan diinta islaamka, islamarkaana uu mar walba cod dheer ku sheegayo in xukuumadda somalilan iyo weliba maxkamaduhuba ay qaataan diinta islaamka oo halkaasi xukunka kitaabka qur-aanka ah lagu fuliyo. waxa ay bulshada inteeda badan taageertay arrintaasi oo ay ku tilmaameen inay tahay wax wanaagsan, balse waxaa la sheegay in cabdimaalik muuse coldoon looga cabsi qabo in uu ku biiri karayo kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalamaya koonfurta Soomaaliya, iyadoo arrintaasi lagu xasuusto in wadaad halkaasi aad looga yaqaanay waa dhulka Somaliland in uu u tallaabay koonfurta, islamarkaana uu halkaasi kasoo hadlay dhowr sano oo lagu eryanayay gudaha Somaliland uu guud ahaan markii dambe uu u digarogtay kooxda argagixisada ah ee shabaabka. waa aadan sunne oo haatan ah saraakiisha ugu sarreysa ee kooxda argagixisada ee shabaabka, waxaana xukuumadda Somaliland guud ahaanba markii dambe lagu sheegay inay tahay xukuumad wax badan fahansan, islamarkaana ah qof walba oo ay daba socotaa uu yahay qof ay wax ku tuhmayso. inkasta oo cabdimaalik muuse coldoon xukunkiisa ay dad fara badan ku tilmaameen inuu ahaa mid sharci darro ah ama guud ahaanba cadaalad darro ah oo waxyaabaha uu sheegaya ay ka jiraan gudaha Somaliland, haddana qaabka uga hadlay aanay dad badan ku qancin. waxa uu ahaa wariye ay dad fara badan guud ahaanba taageersanayeen oo bulshada Soomaaliyeed inteeda badan ay la dhacsan tahay qaabka uu wax u waday iyo weliba caawimaado kala duwan oo bulshada Soomaaliyeed uu u fidinayay. si kastoo haataba waxa ay dad badan aanay ka filaynin in cabdimaalik muuse coldoon uu noqon karayo sida aadan sunne oo kale oo uu halkaasi kasoo hadli doono, waxaana ay aaminsan yihiin in cabdimaalik muuse coldoon uu yahay nin fikirkiisa ku adag balse arrimahaasi aan shaqo iyo shuqul midna ku lahayn. si kastoo haataba cabdimaalik muuse coldoon waxaa maanta xorriyadiisii uu dib ugu helay muddo 2 sano ah kadib oo uu kusoo qaatay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, waxaana maanta uu bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan reer Somalilandba uu sheegay inuu farxadda la qaybsanayo, gaar ahaan hooyadii iyo weliba waalidkiis iyo carruurtiisa iyo qaraabadiisa dhow ayuu si gaar ah ugu mahadceliyay oo intii uu xabsiga ku jiray aad uga warhayay. waxa uu sidoo kale u mahadceliyay cid walba oo ka hadashay xarigiisa iyo weliba qaabkii ay xukuumadda Somaliland u xidhay inay ahayd guud ahaanba mid aan waafaqsanayn sharciga. waa tahay haatan anigana dhanka Itoobiya wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in guud ahaanba colaadda haatan soo cusboonaatay ee u dhaxaysa dowladda Itoobiya iyo weliba kooxda TPLF oo mar kale u muuqatay inay bilowday dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah dowladda Itoobiya, in arrimahaasi meel kale laga darawalinayo. waa sida ay dowladda Itoobiya aaminsan tahay. kooxda TPLF ayaa marar fara badan waxay dowladda Itoobiya ku eedeysay inay tahay koox la shaqeynaysa wadamo kala duwan oo dibadda ah, islamarkaana qandaraas kusoo qaadatay inay daadiso dhiigga dadka waqooyiga dalkaas Itoobiya ee Tigreega, balse TPLF ayaa waxay dhankeeda iyaduna ku doodeysaa inaanay marnaba aanay dooneynin inay qalaase iyo dhibaato kasii wado waqooyiga wadankaas Itoobiya, balse cidda mar walba ku fogan ee arrimahaasi dooneysa inay si xooga wax ku xalayso inay tahay dowladda Itoobiya. labada dhinac waa la isku tuurtuurayaa, balse xogaha la helaya ay sheegayeen kooxda TPLF ay u muuqato in xilligan lagu khasbayo inay dagaal kale la gasho iyo qalaase kale ay ka bilowdo waqooyiga wadankaasi Itoobiya, halka dowladda Itoobiya ay rabto iyo xukuumadda Abiy Ahmed inay si xooga kusoo afjarto kooxdaasi TPLF iyo dowladda Itoobiya ayaa u muuqda kuwa aan heshiin karin marka la eego qaabka ay haatan wax u wadaan iyo weliba sida ay wax ku bilowdeen. waxaa la sheegay in dowladda Itoobiya iyo weliba kooxdaasi TPLF ay mar walba biyaha hoostooda iska arkayaan, khiyaamooyin fara badanna ay ku hoostuugan yihiin wadahadal kasta iyo wadaxaajood kasta oo ay labada dhinac wada gelayaan. Abiy Ahmed waxa uu doonayaa inaanay mar dambe kasoo agmuuqanin kooxdaasi TPLF oo masraxa siyaasadda ee dalkaasi Itoobiya inuu ka saaro kooxdaasi, islamarkaana uu maamul cusub u magacaabo deegaankaasi Tigreega, halka TPLF ay aaminsan tahay in cidda kaliya ay xaq u leh inay hogaamiso deegaankaasi Tigreega inay iyaga yihiin. islamarkaana waxay TPLF arkaysaa in haddii ay sii xukunto deegaankaasi Tigreega inay tahay meel fiican ama jaranjaro wanaagsan oo ay kasoo kori karayaan mar kale siyaasadda wadankaasi Itoobiya ee looga arriminayo magaalada Addis Ababa. waxay guud ahaanba xogaha qaar tilmaamayaan in wadanka Mareykanka oo Ra'iisul Abiy Ahmed uu booqday toddobaadyo ka hor ay isku fahmi waayeen arrinta kooxda TPLF iyo weliba wadahadalkeeda oo uu Ra'iisul Abiy Ahmed diiday inuu kala hadlo madaxda wadankaasi Mareykanka. arrintaas ayaa la sheegay in shaki weyn
weyn ku abuurtay kooxda TPLF iyo wadanka Mareykanka labadaba waxaana ay dhalisay taasi in TPLF ay afka furato oo ay ka hadasho in aanay marnaba xukuumadda Abiy Ahmed aanay u soconin inay fuliso waxyaabihii lagu heshiiyay waana tan haatan bilowday dagaalka ka dhanka ah dowladda Itoobiya iyo waliba dowladaha kale ee ay ku marmarsoonayaan ama guud ahaanba ay ku sheegeen in dagaal ku soo qaadeen Eritrea ay kamid tahay akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.